السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Chicha's Kitchen asxaabtayda. maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago kunaafa. waxaan u baahannahay hal xabba ah, waxaan u baahannahay nus litir caano ah insha Allah, waxaan u baahannahay 3 malqacadood oo sonkor ah, waxaan u baahannahay 1 malqacad oo taxiina bur soo taqaanidba, waxaan u baahannahay 2 malqacadood oo malqacadooyinka cuntada oo waraanga ah mise cornstarch, iyo waxaan halkan ku haysanaa waa subag, markaa ghee dhahaan mise subaga isagoo dhanba ayaan halkan baaquli ku dejisanaynaa. marka waan gogoynayaa, wax yar yar baan ka dhigayaa insha Allah. tijaabiya insha Allah. marka tacliiqaadkana igu soo qora mise comment-ka wixii aad yani ka qabtaan, haddaad jeclaateen iyo haddaad jeclaaninba labadaba. waxaan rabnaa inaan kastar oo kale inaan karino, aanan kastar ahayn run ahaantii, ay tahay caano iyo sokor iyo burka iyo waraangada, marka dhexda uga ridno oo dhexda dadka qaarkood jubnay ku shubtaan, marka haddaad jubna haysatidna waad gelin kartaa, laakiin aniga waxaan ka jeclahay markay yani waraangada iyo burka ee dhexda uga gelino aaday macaan u tahay. marka subscribe-ta higa iloobina iyo share-ka insha Allah ilaa yani saasay noqotay insha Allah. subaga ayaan tartiibto aan ku daraaya, markaasaa lagu xashaaya insha Allah. laba kale aan ku shubeyna, markii horena labo aan ku shubnay. marka hadda waxaan isku soo noqonaynaa, waxaan karinaynaa wixii aan gudaha ugu ridahayn. marka dabka waxaan u geynaynaa meel dhexe ah insha Allah. waxaan ku shubeynaa caanaheeni oo nus litarka ah, dhexdeedii malqacadood oo sonkor ah. dabka u yaray markaa burka lagu shubayo iyo markii aan ku shubeyno waraangada mise cornstarch saa u taqaanid insha Allah. si fiican ayaan soo dhexgelinaynaa. marka waa walaaqa laga joojinin ilaa ay soo cuslaato. walaaqa ku wadayna, waayo haddaan ka tagno waxayna isku dhegeysaa, dhulkay qabsanaysaa. hadda way soo cuslaanaysaa, way soo qabanaysaa. hadda 1 malqacad oo muggiisa ah oo subaga ayaan ku ridayaa, si nakada yani ka fiican ay siinaysaa, mise dhadhan fiican. markaasaana la rabaa inay noqoto qawaamkii. halkan uga tegaynaa inay qaboobaysaa insha Allah. waxaan isku soo noqonaynaa markay qabowdo. hadda waxaan soo qaadanay waxa cupcakes-ka lagu kariyo mise muffinka lagu kariyo. marka insha Allah saliid yar baan dhinacyasha ka marinaynaa. markuu aan ku riixaya aad yani isku dhago. koobka shaaha ayaan si fiican ugu riixayaa. marka hadda waxaan ku shubayaa wixii aan wada karinay oo aan maxaa la yiraahdaa, ilaahay hadduu yiraahdo aan halkan ku shubaya. adiga yani malqacad muggiis isagoo dhan marka waan ku wada wareejinaya insha Allah. malqacada waxay awoodi waa inaan ku sameeyo. marka waxaan isku dayeynaa inaan daboolno, yarna korkaan ka saareyna
si ay isku qabsato haddana korkii. haddaadan haysaninna maxaa la yiraahdaa birtan, waxa kale dhan aa haysatid, hataa waxa keega lagu kariya isticmaali kartaa, isagoo weyna kusoo baxaya muu laazim yani inay noqoto xajmigan inuu noqoto sidaa rabtid. haddaa siiniyad haysidna siiniyadda ku karsan kartaa saa adiga jeceshahay. laakiin kana atarki waxaan u baahannahay mise biyaha sonkorta waxaan u baahannahay koob mugeeda oo sonkora iyo hal gilaas iyo nuskiisa oo biyo ah. gilaaskaasaan isticmaala. waa kanaa sonkortii iyo biyihii si fiican isku soo karkartay, markaa wuu ka damanyahay insha allah. hadda furankii baan aduu kulul yahay, marka furankii baan hadda kasoo saaray. haddaad jeceshahay yani bunni ziyaado ah, wax yar 5 daqiiqo dheeraada yani furanka uga dhex tag. aniga laakiin waxaan saanan jeclahay markay tahay dahabiga iyo bunniga furan. yani sonkortaan karkarinay ayaan korka uga shubayaa. baraadkan gelinaya, waxaan uga tegayaa muddo insha allah 30 daqiiqo, waan isku soo noqonayaa biidnillah. hadda uu qaboobay, kuleel maba ahanba, marka hadda saxanka wada saarayna insha allah, marka isku soo noqono. wax yar adarkan ku korshubayaa. korka ka saareynaa isagoo wax yar aan soo googooyay. iina soo sheega insha allah haddaa ka hesheen iyo haddii aadan ka helinba. isla jarno aan eegana say gudaha kusoo baxday insha allah. aada uu jilicsan yahay, marka isku soo saasaan ka rabnaa insha allah. gudaha dhan kareemka ka buuxa. waxaan idiin rajeynayaa maalin wanaagsan. qofkii maalin wanaagsan u tahay iyo qofkii habeen wanaagsan u tahayna waxaan u rajeynayaa habeen wanaagsan. intaa mar kale wada kulmayno waxaan idinkaga tegayaa maca asalaama, fii amaan illah.